Warkani wuxuu ka hadlayaa dooda la xiriirta in Homo naledi, oo ah nooc ka mid ah aadanaha hore oo lahaa maskax yar, uu ahaa kii ugu horeeyey ee asaasa dhaqanka sida meydadka, 1-2 oo sano ka hor inta aysan samaynin aadanaha casriga ah, Homo sapiens. Dooda dhexdhexaysa saynisyahanada. Sheegashada Berger iyo kooxdiisa waxay ku doodayaan in lafaha Homo naledi ee laga helay god ku yaal Koonfur Afrika ay muujinayaan calaamado as ah. Waxay leeyihiin meydadkan waxaa lagu aasay ciid gudaha godka, taasoo ka hor imaanaysa aragtida ah inay godka ku dhaceen oo si tartiib ah u aaseen. Shaki qabayaasha skeptics, saynisyahano kale ayaa shaki gelinaya sheegashadan. Waxay ku doodayaan in cadaymaha aanay ahayn kuwo dhab ah, iyagoo tusaale u soo qaatay in taariikhda dhuxusha ee la helay aan la xaqiijin, iyo in sawirada derbiga ku yaal aysan caddayn inay aadanuhu sameeyeen. Maxaa cusub? Daraasadii ugu dambaysay, kooxda Berger ayaa daabacday warqad cusub oo la xaqiijiyey oo ay ku sheegayaan in meydadka lagu daboolay ciid markiiba kadib markii ay godka soo gaareen. Tani waxay beeninaysaa aragtida ah inay sababtay duufaan ama dhuljiif. Caddaymaha waxay leeyihiin booska iyo macnaha lafaha waxay muujinayaan in Homo naledi uu si toos ah uga qayb qaatay habka aaska meydadka. Muxuu macnaheedu yahay? Haddii sheegashadan la xaqiijiyo, waxay bedeli doontaa fahamka asaasiga ah ee ku saabsan awoodaha maskaxeed iyo dhaqanka aadanaha hore. Waxay muujinaysaa in dhaqannada adag, sida aaska, aysan ahayn kuwo ku kooban oo keliya aadanaha casriga ah. Doodda ayaa weli socota, waxaana la filayaa inay jawaabo badan ka yimaadaan bulshada sayniska.